السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نومبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالنا عافاتك. ما شاء الله. أصحابي نكان أدو جدين ولجن هري وعيارتو هري نكان هدي لو دسلاي ماركت إسلام كتالا لو دسا دلالا نكان ماركت أوهبون نكان ألكي أخون أوليه نومبا تاريخ أبارو ماركت واكنا لاعب كينوواي نكي عيار عصو عيارة أركجري أما ماركت هذا مسكحديس أمانكيس هذا حسوس وقتياس بركي اللي جري وكفالو كرا نومبا حالة عافاتك كبرن وفي أنا ولا أركي عادي عادي ما حدك أدو قد بالله هذا ماركت دتك هوري يا أما دتك كداونا وحنا مكامرنا لقى داونا دل يدبت مال والبولايا أركدونا إن شاء الله ما حد ماركت دتك أدو شغله هذا الحمد لله رب العالمين دتك أنا وحو شيء خوف عيارتو يا نحي oo magaca aan yeeshay degmada Baraawe iyo Soomaali dhan Soomaali markii aad magacaas aad maragtay ay ku bixisay yaala dheeli jirteen waxaan ku ciyaari jiray ciyaarta oo finaalka ama semi finaalka waxaan ciyaari jiray anaka horta anaga iyo Baydhabo finaal waay adikii Baydhabo finaal aadan anaga iyo Hiiraan waxa semi finaal waay semi finaal adi Hiiraan aadan ciyaartaha goolka Shabeellada Hoose waxaan ka ciyaari jiray 5 oo team aan ciyaari jiraan aye afaan Burco Hargeysa kullu waa badi dadkaas oo waa badeen sidii ka badashay anaga badi idinka badashay hadi marka baad anaga iyo kuwaan Hiiraan Hiiraan ciyaaraha markii la ciyaari ما شاء الله وعياري عيارته بريج ولا غيره دقيقياش لو دار معناها بريج يا قشن دقيقيال يا لو داري دقيقياش markii lagu dari ما شاء الله waxaan noqotay faras oo kale oo liwaax ah laba gool aan dhis adiga ayaa dhalinay labada gool faras oo kale ayaa markaas u boodis ما شاء الله waxaan ku imaaday anaka iyo Baydhabo waxaan ijaayisay waxa gashi namoomba inaa ka eliyo laakiin barikiis waa waayba maskiin inaa eliya rabi hoog la'aan aan noqoto waxaan leeyahay ciyaartooyanahay oo qof oo najanahay niyadaada hagilin inaa maanta namoomba ku talaabaysa inaa reesto hagilin aan niyadaada namoomba inaa kareysid niyadaada hagilin koobkaan aniga arkayna waxa dushan kubada iyo madaxan kubada koobkaan dushi iyo madax ayaan ku qaadanayaa ninkan af Soomaaligiisa ilaahay saamba maaragtay oo uumay ninkan macnaha ala yaabana oo ninkan af Soomaaligiisa waa sidan qofkana waxa uu yahay lagu manaco oo maaragtay waa ninkan waana Soomaali ninkan waa nin hadda oo da'ka daw imaaday بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ فيكتوريا سيمبر سفعي دقيستا waxaan rabaa inaan ka hadlo magaalada marka la dhaho oo Soomaalidu u wada taqaano marka cadeey waxay ahayd magaalo u dhigmata magaalada Muqdisho marka cadeey waxay ahayd meeshii hogaaminaysay dhaqaalaha wadanka marka cadeey waxay ahayd caasimadii Shabeellaha Hoose marka cadeey waxay ahayd metropolitan ninkii raba inuu horumar sameeyo ninkii raba inuu maal helo ninkii raba inuu wax soo saarto New York oo kale ahayd marka cadeey waagii isticmaalka dadka ugu lacagta badan Talyaaniga markay ahaayeen ee marka ka yimaado marka waxay caan ku ahayd waxa ku taallay Casa d'Italia ku taallay waxa ku taallay naadi Talyaaniga waxay kaloo caan ku ahayd waxa ku yaalay Bar Banana Doro marka waxay caan ku ahayd dekada Baariska ah ee reer Shabeellaha Hoose dhan ka shaqaysan jiray marka waxay caan ku ahayd Astuura adduunweynaha laga garanay marka waxay caan ku ahayd mooskii la oran jiray Somalita wuxuu ahaa the best banana in the world Somalita wuxuu ahayd tarwadii ugu weyneed ee wadanka u lahaa Somalita waxay ahayd mooskii ilaa Jubbada Hoose ilaa meel laga keenay ee laga dhoofin jiray dekada marka waxa ab original 12 كوفية لها رير حمرك شانشية له هرفقي له قلب والبله في المورج المرة سومالي دنا دقنته هوديل كلها هوتيل الجعلة كويا المرصدة لها هبرجي المقايدة كلها هين ده كوي وضن ولا هين بمالك دريو سمين جري بمالك ودقنان جري عوسكو كيني جري اندي جنوا بنانك كدقناي لكن مركا وحي معروف كهد شريف هاشم إيو أشرافته إيو بيت راسك إيو عرب دقني عنكو إهد
marka waxaan u doonan jirnay dharka ugu qurux badan ee lagu libistay alta moodada laga soo gadan jiray marka waxay macruuf ku ahayd carnival marka waxay ahayd dhaqaalaha ay Italian colony markay Soomaaliya lagu faanayo dhaqaalahaas markuu ahaa marka waxay ahayd dhaqaalihii ishii ee Yurub barisay waxay Soomaaliya too shabeelkii u ahaa oo Soomaalida ahayd Moscow dadka reer marka waxay macruuf ku ahaayeen dad wada shaqeeya qaar degdeg ka shaqeeya qaar ganacsi dukaamo wax walba waxay ahayd meel marinaayo badan ku soo dego xamara laga imaan jiray galkacya laga imaan jiray hargeysa laga imaan jiray meel baa laga imaan jiray was dream to go to marka ninki marka aaday waxay nin Venezia aaday nin bunduqiya aaday hori gadaale baawurtu socotay marka la aadi jiray xamara laga bixi jiray khamiistii jumcaha ma soo koobi karo marka qiimaheeda muhiimkan ka hadlayaa lubka marka dulmigeeda wuxuu bilaabay markii la qaatay calanka independence oo xoolo boob la bilaabay markaaba lagu bilaabo bilaabtay 1963 wasiir maaliyaha 1963 dowladii aadan cadde iyo wasiir daaqilihii dowladii cabdirashiid abdulsax xuseen dowladiisa nin reer alta jubbo ahaa waa la garanayaa in laga caroodo ma doonayo moota ka hadlay leedahay qofan ka hadlay maray taariikhdan ka hadlay ayaa ugu horeeyay ninka boobay marka iyo dhaqaalaha ummadda lacagtii loogu talagalay infrastructure beeraha lagu soo biyo ugu horeeyay inuu dowladii 10 sano Talyaaniga ee dhisneed inuu la shaqeysto oo la shirkoobo uu boobay shacabka dhan shabeellaha hoose ee beerii qaateen wax walba qaateen mooska qaateen ay dantoodii ciyaalkooda u shaqeysanayeen wuxuu ahaa wasiir maaliye wuxuu ahaa wasiir daaqili waa fiirin kartiin ninku ahaani magac ma sheegay mana rabo inaan qof caayo laakiin taariikhdu waa in laga hadlaa qaqayaas jiilka saddexaad la bara googalaad galaysiin dowladda cabdirashiid iyo dowladii aadan cadde yaa ahaa wasiir daaqiliye ama wasiir maaliyad oo ahaa labadaas soo qabtay waa nin macruuf alta jubba ninka boobkii dhaci uu marka ku bilaabay ayaa kacaanka dhashay kacaankii markuu dhashay asaa xujusan waa la xiray ibraahim cigaal waa la xiray qorsheel iyo waa la dilay ceenaanshe iyo gabeere iyo dowladii hore ee 60kii musuq maasuq ah hal nina ka badbaaday waxa ka badbaaday ninkii wasiir daaqiliye ahaa iyo wasiir maaliyadda maxaa dhacay wuu u yimid maxamed siyaad u dhagto wax ugu sheegay uu yiri shabeellaha hoose dhaqaalihiisa anaa gacanta ku hayo gaala anaa gacanta ku hayo mooska ninka lama xirin asagaa marka dhulka la galay markuu boobi kari waayay sidii Sharif Sakiin siyaas ma galan tijaaro lacag ka doortay waxa dhacday marka in dekadii laga xiray mooskii laga dhoofin waa dantay magaaladii waxa dhacay beeraheedii inay qaateen waxa dhacday in small la suubiyo wax la dhaho mooska dadkii mooskoodii la qaatay beerahoodii la qaatay mareexaan waxba laga siiyay siyaad bare waxba laga siiyay beeraha kulli aadan cadda awal sidoo kale wax looga siiyay marka nimanka alta jubba ka yimid waxay ku fiican yihiin siday Soomaali sidii aboorka u cunaan ninka lama xirin wasiir aan la xirin oo la dhoofin male billionaire buu noqday markuu baabi'iyay dudumiyay markuu qaadan kari waayay maanta waxa yimid Sharif Sakiin oo beerii qaatay oo milixdii jibi oo shabeellaha hoose dhan raba inuu baabi'iyo marka waxa laga burburiyaa alta jubba maxaa dhacay waxa timaado madax rabta inay dhaqaale suubiso iyagana waxay tusaan isha dhaqaalaha meesha yaalla iyo dadka masaakiinta si loo boobi karo habar gidira iminka wada boobayso wada haysto miimaala boobay qof walba dad waxay ahaayeen noomad ahoo dhaqaale wada ka soo gelinay taawla socda fiidiyoal badanna waa ka soo hadli magacyadan google gal raadiye dowladii aad caday dowladda Cumar Cabdirashiid dowladii Cabdirashiid Sharmaarke yu ahaa wasiirka maaliyadda iyo wasiir daaqiliha ninka weeye ninka marka ku bilaabay boob Sharif Sakiin jidkiisii buu haystaa hasta la Victoria sempre qaqayash ma salaam